رئيسul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamul goboleedka Jubbaland. Wafdiga ra'isul wasaaraha Soomaaliya waxaa garoonka magaalada Kismaayo si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, labada gole, wasiiro, xildhibaano, odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka. Soo dhaweyn kadib wafdiga ayaa loo gudbiyay qeybta nasashada ee garoonka magaalada Kismaayo, halka uu horan warbaahinta kula hadlay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo wafdiga uu hogaaminayo ra'isul wasaaraha Soomaaliya. Ra'isul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Khayre oo booqasho shaqo loogu yimid joogina doona dhowr bisha soo socota. وعلى مدى رئيسul wasaare ku soo dhawow magaalada Kismaayo xarunta dowlad goboleedka Jubbaland. Xaslee waa marti committee deegaanka ayuu atii dalkaagu xarunta ra'isul wasaaraha oo ahayd aad baan u faraxsanahay inaad timaado. haddaan kaftan ku darsado dowladda federaalka dowladda Soomaaliyeed oo isteediyada oo dhan iyo Soomaaliya kulli mas'uulka ka ah, marka in socodkiinu yaraado oo shaqadiinu yaraato oo gacantiinu yaraato oo codkiinu ku yaraado isteediyada waxaa arrin iska jirto. taa marka waxaan rabnaa inaan idiin sheegno inaynan martina cid u ahayn, deegaankiina ay tahay, mas-uuliyaddiina saaran ay tahay, dhulka cabitaan ay tahay. mudane xasan cali qeew oo hadal kooban ka jeediyay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ayaa madaxda Jubbaland iyo shacabka reer Kismaayo kaga mahadceliyay sida ay u soo dhaweeyeen isaga iyo wafdigiisa. gaar ahaan shacabka reer Kismaayo oo aan aaminsanahay ilaa maanta oo dhan inay noo taagnaayeen si ay noo soo dhaweeyaan, maalmihii ugu dambeeyayna ka shaqeynayay inay soo dhaweeyaan wafdiga aniga oo ra'isul wasaare aan hogaaminayo ay qayb ka yihiin wasiiro badan oo ka mid ah golaha wasiirada iyo taliyaasha ciidamada iyo xildhibaano kale oo iyaguna ka socda golaha shacabka. waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida diiran oo aad noo soo dhaweyseen. waxaa kaloo halkan ka muuqata farxad iyo reynreyn. waxaan rajeynayaa mudane madaxweyne maalmaha halka aan joogno in aan ka wada arisan doono sida aan u dardargelin lahayn wada shaqaynta ka dhaxaysa dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka. sidoo kale waxaa wasiirada ila socda iyaguna ay u yimaadeen inay la qabtaan shaqooyin kala duwan wasiirada dhigooda. waxaa kaloo ila socda taliyaasha ciidamada iyaguna sidaas oo kale halkan u yimid inay shaqo qaran ka qabtaan. intaasi kadib ra'isul wasaaraha ayaa loo gudbiyay gudaha magaalada Kismaayo isagoo halkaasi bartamaha magaalada kula hadlay qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka. shacabka reer Kismaayo waa u mahad celinayaa, guud ahaan shacabka reer Jubbaland waa u mahad celinayaa. halkan waxaa ka muuqata farxad iyo reynreyn. waa ogahay inaad quraacda taagnaydeen, waa ogahay inaad na sugayseen, laakiin waxaan rabaa sida aad noo sugayseen inaan idinkugu sheego sidaas iyo si ka badan inaan raalli idinkaga nahay aniga iyo wafdigaygu. waxaana aad idinkaga mahad celinayaa qoraxda aad taagnaydeen. waxaan leeyahay ilaahay ha idin dhib yareeyo, laakiin soo dhaweynta waa idinka qabnaa. ra'isul wasaaraha Soomaaliya mudane xasan cali qeew ayaa la filayaa inuu kulmo la qaato madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Kismaayo. Cabdi Abshir Yuusuf, raadiyaha TV-ga dowladda Koonfur Galbeed, magaalada Kismaayo.